daawadayaal ku soo dhawaada 14 calaamadood oo lagu ogaan karo inuu kansar ku hayo taas oo looga shakisan yahay inuu kansar yahay. Calaamada koobaad waxa weeye adigoo neefsan kari waaya isticmaalana aaladda yar ee qofka naqaska ka keenta adigoo isticmaalaya aaladda yar naqaska ka keenaysa waxay taasi calaamad u tahay inuu kansar ku soo hayo. Calaamada labaad waxa weeye qufac fara badan iyo xanuun fara badan oo aad ka dareento laabta taasoo noqon karta iyaduna calaamad ka mid ah calaamadaha kansarka. waa inaad doktorkaaga si toos ah ula xiriidhaa si aad u ogaato qufacan halku ka yimi. tan labaadna saddexaadna waxaa ka mid ah xumad soo noqnoqotay oo joogta ama exhibition taas oo noqon karta mar walba calaamad ka mid ah calaamadaha kansarka. waa inaad doktorkaagana aad si toos ah ula xiriidhaa si aad u ogaato calaamadahan soo noqnoqonaya. afraad waxa weeye adigoo waxba laga kari waayo dhanka cunaha taas oo looga shakisan yahay inuu noqon karo kansarka cunuhu inuu ku hayo. taasna waxay ku xidhan tahay hadba doktorkaaga si aad ula xiriidho aad u ogaato xanuunkan iyo cunaha waxa sababay inuu cuntada mari weydo. calaamada shanaad ayaa waxay noqon kartaa burooyin yaryar oo ka soo baxa dhanka cunaha ama jirkaaga taas oo noqon karta mid ka mid ah calaamada ugu weyn uguna muhiimsan ee kansarka. lixaad ayaa waxay noqonaysaa calaamadaha kansarka iyadoo ka yimaada xaddi badan oo dhiig ah taas oo ka soo baxaysa afkaaga iyadoo dhiiggaasi uu noqon karo ama uu sababi karo cudurka kansarka. toddobaad ayaa noqon karta daal joogto ah oo aad ka dareento jidhka iyo waqtiyada aad hurdo ama aad soo kacdo mid ka mid ah kansarka calaamadaheeda ayaana taa noqon karta. sideedaad ayaa waxay tahay qaybta calooshaada abdominka loo yaqaano oo aad u weynaata iyada oo mid ka mid ah kansarku oo calaamadahaasi uu leeyahay caloosha ku weynaata waxay ka mid tahay qayb ka mid ah kansarka inuu cudurkaasi ku soo hayo. waxaana la xiriiri kartaa dhakhtarkaaga. qaybta sagaalaad ayaa waxay tahay xanuun aad ka dareento bogga ama abdominalka halkaas oo xumad daran ay kaa qaban karto taasna waxaad la xiriiri kartaa doktorkaaga si aad u ogaato. toddobaad ayaa waxa ah inay miisaankaagu lumo waqtiyada qaar ka mid ah waxyaabaha aan isku arki jirin aad isku aragto taas ay ka mid tahay miisaan yari iyo tabar darro. taasna waa mid ka mid ah calaamadaha ugu muhiimsan ee kansarku leeyahay. 11aad ayaa waxay noqon kartaa goobooyin yar oo cas oo ka soo baxa cunaha ama qaybta wax laga liqo taasna waxay noqon kartaa mid ka mid ah calaamadaha kansarka. 12aad ayaa waxay tahay wejigaaga oo isbedela ama qayirma taas oo laga shaki qabo inaad calaamadaha ku dhaca kansarka ama ku dhaca indhaha taas oo looga shaki qabo inuu mid ka mid yahay calaamadihii kansarka. 13aad ayaa waxay tahay cidiyahaaga oo isbedela qayb cas taas oo caddaan soo dhex gelayo qaybta cidiyaha baxa taasna waxay noqon kartaa mid ka mid ah calaamadaha kansarku uu leeyahay. wanaag si degdeg ah doktorkaaga aad ula xiriidhaa si wax looga qabto. 14aad ayaa waxay tahay qaybta spinal cordka ama loo yaqaano lafdhabarta xangulaha aad ka dareento xanuun aad iyo aad u daran taas oo noqon karta iyaduna cudurka kansarka. daawadayaal haddii aad calaamadahan isku aragtay waa inaad si degdeg ah doktorka ula xiriidhaa ama aad samayso la talin guud ama caafimadeed si markiiba lagaga gaadho cudurkan si uusan kugu sii fidin jirkaaga oo dhammaystiran. daawadayaal ha ilaawina subscribe iyo like siisaan barnaamijkeena si aan ku dhaafin barnaamijyo badan oo soo socda mustaqbalka.